السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لهي أن شعلهي أنت هذه أنا السلام يا الله نشرف الله نكراميه ولا المانتا وحن رواية شعلهي أنني لو ذاقو كنين كان حلا رافع كالسيوم وكنين لف حنونك شلب حنونك دبر حنونك عروق حنونك join pain-ka dhammaan lafaha dhan ee jirka dadka lafa xanuunka leh gaar ahaan dadka waaweyn ayuu aad iyo aad u anfacayaa. waa kiniin tayadiisu aad u sareyso inaba caadi ahayn. waa kiniin Mareykan ah oo wadanka Mareykanka shirkad ku taala gobolka Texas Arizona oo gaar ahaan gobolka Texas ayaa soo saartay. waana dabiici waa kiniin ka samaysan dacar iyo malab ayaa laga sameeyaa aloe vera saa sawirka idinka muuqata. burgurkaas si wada dacarta wuxuu astaan u yahay shirkadda soo saarta dawadan iyada ah. marka dawadan waa caagaas aad arkaysaan aad u jeedaan 9 xabo ayaa ku jira. waa dawo supplementary ah taas oo anfacaysa cid kasta ay isticmaali karto intaan ka ahayn caruurta dadka waaweyn oo dhan way isticmaali karaan. qofka calciumkiisa ayay kor u qaadaysaa, calcium ku filan ayay siinaysaa, appetite-ka ayay u furaysaa, hurdo ayuu ka helayaa. gaar ahaan dadka waaweyn aad iyo aad ayay u anfacaysaa waayo qofku markuu weynaado appetite-kiisu wuu yaraadaa, hurdadiisu way yaraataa, xanuunkuna wuu ku bataa lafa xanuunka iyo waxaas. qofka lafaha meelaha iskaga imanayaan waxa meelaha lafuhu iska galaan ay iskaga imanayaan waxa ku yaala waxyaabo yaryar oo mucus la yiraahdo baa ku jira oo dhareer ah. dhareerkaas oo u sahlaya inay lafaheena bending sameeyaan laalaab si yaro fudud ay u laablaabmaan. marka dhareerkaasi qofka uu ka dhamaado ama uu ku yaraado lafihii waxay sameynayaan friction inay islisaan oo qagagac yiraahdaan. marka qagagacda waxa keenaya inuu jirka lafaha dhareerihii ku yaraado ka dhamaaday ama ku yaryahay ama ka dhamaaday ama intii la doonayo qofku aanu haysanin calcium ku filan. marka kiniinkan aad iyo aad ayuu uga saacidaya qofka. muddada qofku isticmaalayana waa muddo 3 months ugu yaraan maximum 90 days weeyaan. habeen iyo maalin ayaa la cunayaa. marka qofka lafa xanuunkaasi waxa aad iyo aad uga caafimaadaya oo kaga bogsanayaa calciumkiisa dhaxsaneed kor ayuu u qaadayaa. marka kiniinkan waa kiniin aad iyo aad u wanaagsan faa'iidadiisana la soo koobi karin. marka waxaan u sheegayaa dhammaan shacabweynaheena Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan dadkeena waaweyn waalidiinta in looga faa'iideeyo oo la siiyo si ay u helaan calcium ku filan waayo dadkeena badanka caano ma cabaan. 90% dadkeena caanaha ma cabaan. caano xoolaadka farashka ma cabaan. marka waxyaabihii caanaha laga helay calcium-ka dhan qofku hadduu cabi waayo oo isticmaali waayo ama cuni waayo waxa jirkiisa ku dhacaya inay ku yaraato calcium-kii. marka calcium-ka markay ku yaraato qofkii waxa imanaysa inuu daal, tacbaan, lafa xanuun, jir xanuun, curuq xanuun ay ku dhacaan, rheumatism waxyaabahaas oo dhan ay qofka soo food saaraan. waxyaabaha ay ka samaysan tahay dawadan iyada supplementary-geenan waxa kamid ah oo ku jira vitamin C, vitamin D, calcium, magnesium, zinc, copper waxyaabaha macdantaas oo dhan ayay ka samaysan tahay. marka insha Allah waxaan rajeynayaa in laga faa'iideysan doono oo la isticmaali doono oo dadkeena familka waalidiinta especially dadka waaweyn la isticmaali doonaan oo loo gadi doono si ay u helaan calcium ku filan lafahooga
dhareerka iyo waxyaabaha ku yarna ay meesha loogu talagalay ay u yimaadaan. Marka waa kaasaa maanta intaas ayaan jeclaaday inay la wadaago walaalahay. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. haddii u baahan kaniinkan xagga hoose description-ka ayaan igu soo qorayaa meeshaad kala soo xiriireysaan iyo telephone number-ka. marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. ana salaamaya dhammaantiin. allah na sharfo. waxyaabo kaloo la mid ah oo loo baahan yahay aad u wanaagsan caafimaadka lafaha ugu wanaagsanna insha Allah waan la soo wadaagi doonaa. marka khayr ayaan idin rajeynayaa dhammaantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.